kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. Bismillaahi raxmaani raxiim. Galab wanaagsan daawadayaal, maanta waa Jimce 1 bisha Febraayo. Waxaan halkan kusoo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan oo idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamuud Xasan. Dhakhaatiir soo galooti ah, hilibka xalaasha ah, miisaaniyadda oo hoos u dhacday iyo xaalado baraf oo khatar ah. Taas waxaan qodobadii oo kooban, haatanna waa kuwan iyagoo faahfaahsan. Dhakhaatiir soo galootiya. Barnaamij cusub oo la soo jeediyey ayaa si fiican uga qayb gelin doona shaqada dhakhaatiirta dibadaha ama waddamada ajnabiga ayuu ka yimid tababarka iyo khibradda dheeraadka ee caafimaadka u leh gobolkan Maine jooga. Sida haddaba lagu sheegay warbixin la sii daayey bishii aan soo dhaafnay, barnaamijkani waxa uu ku lamaaneyn doonaa shaqaalaha caafimaadka ee dibadda wax ku bartay 4 isbitaal ee wax lagu bartay oo kala yaal gobolka Maine, iyagoo markaa shaqaalaha la siin doono shahaado xadidan. Gobolka Illinois ayaa wuxuu horey u abuuray barnaamijka faalo-qaadis oo kan la mid ah sanadkii hore, iyadoo gobollada West Virginia iyo Washington ay iyaguna siiyeen liisanno caafimaad oo iyaguna xadidan shaqaalaha shakhsiyaad gaar oo caafimaadka iyaguna soo bartay. Daba tala soo jeedintani waxay ka timid Komishinka Maine ee loo abuuray sanadkii hore si ay gacan uga geystaan sidii loo soo afjari lahaa isu dheelitirnaan la'aanta ka jirta shaqaalaha caafimaadka ee Maine oo sii gaboobaya iyo iyaguna shaqaalaha soo galeetiga ee khibradda caafimaadka leh ee gobolkan Maine jooga ee shaqada u baahan. Talooyinka komishinka hadda waxa ay ku wajahan yihiin in loo diro oo waxa loo diray anaada golaha xildhibaanada ee Maine si ay iyagu arrintaa uga doodaan. Hilib xalaal ah. Kawaanle ku sugan magaalada Unity ee gobolka Maine ayaa qorsheynaya inuu ballaariyo shaqadiisa si uga jawaabo kororka baahida hilibka xalaasha ee gobolkan Maine. Qorshayaashaas waxaa ka mid ah dhismaha xarun cusub oo haysata shahaado heer federaal ah iyo abuuritaanka iskaashato hilibka ah iyada oo lala kaashanayo beeraleyda gobolka oo dhan si ay xoolahooda u geeyaan kawaanlahaas. Baahida loo qabo cuntada xalaasha ah ayaa muddadan dambe sii kordhaysay iyadoo ay sababtu tahay dad muslimiina oo soo galootiga ka kala yimid waddamada Soomaaliya, Ciraaq, Suuriya, Afghanistan iyo waddamo kale. Degmooyinka waxbarasho ee ku yaala dhinaca koonfureed ee gobolka ayaa iyagu waxay bilaabeen inay siiyaan cunto xalaal ah ardayda si ay u daboolaan baahida cuntada ee ardayda muslimiinta ah ee dugsiyadaas dhigta. Si haddaba sheekadan oo dhammaystiran aad ugaga bogato afkaaga kaga akhriso ama booqo mainepublic.com. Miisaaniyadda hoos u dhacday. Magaalada Portland waxaa soo food saaray hoos u dhac miisaaniyadeed oo 20 milyan gaaraya miisaaniyad sanadeedka sanadka soo socda. Hoos u dhacan waxaa lagu tilmaamay inuu keenay maalgelinta kaalmada guud ee gobolka oo yaraatay waayitaanka kaalmada federaalka iyo mushaarka saacadaha dheeraadka ee shaqaalaha magaalada oo iyaguna aad u batay. Waxaana hoos u dhacan keenay la filayaa inuu uu arrimahaas ay keeneen uu sanadkan soo socda u dhici doono. Agaasimaha maaliyadda ee magaalada Portland ayaa wuxuu sheegay in laga yaabo si loo daboolo hoos u dhaca miisaaniyadda in la kordhiyo canshuurta 9.5%, taas oo celcelisaan ku dari doonta canshuurta guryaha laga qaado guri walba ilaa $500. Dabaduqa magaalada Mark Dion ayaa wuxuu ku dhiirigeliyey in dadweynaha Portland ay ka qayb qaataan kana tala bixiyaan doodda miisaaniyaddaas. Xaaladaha barafka ee aan ahayn ammaanka. Roobabka jiilaalka iyo hawada oo iska diirimaad ayaa waxa ay ka dhigtay xaaladaha barafka qaar ka mid ah goobaha biyaha harooyinka iyo balliyada Maine mid aan iyadu ammaan ahayn. Saraakiisha gobolka ayaa waxay sheegeen in xaaladaha xitaa hal meel oo biyo ay fadhiyaan ay kala duwanaan karaan, ayna adag tahay in la ogaado meesha ay mawjadaha biyuhu ay barafka ka dhigeen khafiif. Saraakiishu waxay sheegeen in barafka uu ku dul yaal harooyinka iyo balliyada loo arkay inuu yahay mid ammaan ah oo lagu dul socon karo haddii uu gaadho 4 ilaa 6 inji. Waxaad nagala socoteen Maine Public News Connect. Intaas iyo arag dambe waanad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum.
waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Maine Public News Connect waxaa suuro geliyey shakhsiyaadka iyo hay-adaha taageera oo ka kala yimid dhammaan dhinacyada Maine iyo weliba Ku iyo Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing iyo IDEX. Maine Public News Connect waxaa suuro geliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aad dhaqaale ahaan la tabaalaysan tahay COVID-19 daraaddii, sanduuqa mulkiilayaasha ee Maine waxay ku siin karaan kaalmada aad u baahan tahay. kaalmo ka timid dowladda federaalka ah oo bilaash ah oo lagu bixiyo kharash hore ama mid hadda ah. codso maanta oo badbaadi qoyskaaga iyo gurigaaga. waxa aad isbarbar dhigi kartaa caymisyada waxaanad ka heli kartaa kaalmo dhaqaale coverme.gov oo ah meel laga helo caymiska caafimaadka ee la raqiisiyey si aad hoos ugu dhigto qiimaha aad bixinayso. shaqo wanaagsan baa halkan laga helaa. barnaamijka Maine Apprenticeship Program waxay ku siinayaan shaqo ku tababar lacag lagugu siinayo. wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir maine.gov/apprenticeship. waxyaalo badan ayaa iska beddelaya Maine Care. ka warhay si aad caymis u hesho. iska sax ciwaanka iyo lambarkaaga adiga oo ka gelaya maineconnection.gov.